barnaamijkana maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa taariikhda jasiiradda Ireland gaar ahaan waqooyiga Ireland. taariikhdani waa taariikh kooban oo aanu si kooban ugu sharxayno dhulweynaha Ireland gaar ahaan dhulkaasi la yiraahdo waqooyiga Ireland. haddaba saad arkaysaan tani waa sida ay ahayd khariirada ama maabka Ireland qarnigii 12aad. tan dambana waa khariirada ama maabka waa sida ay hadda tahay Ireland. saad arkayso waddanka Ireland wuxuu u kala qaybsamay wixii ka dambeeyay qarnigii 12aad laba qaybood. intaa kadib wixii dhacay iyo taariikhdiisa waa kan. taariikhda Ireland qarnigii 12aad Ireland waxa ay ahayd mid aad loo qoqobay oo ay qoobeen landlordisyo dhulka maalgashada iyo English iyo Scottish Protestant ah oo la dejiyay qaybta waqooyi ee Ireland. dib u dejinta soo galeetiga English iyo Scottishka ee England laga soo waariday oo ujeedadoodu ahayd in lagu abuuro ama ay qabsadaan dhulka waqooyiga Ireland. intooda badan dadkaasi Ireland waxay isku ballaariyeen dhulkaasi waqooyiga Ireland. waxa ay meesha ka saareen in badan oo Irish Catholic beeraley ah. haddaba sidee ayuu ahaa xaalka Irishku Catholigu ee halkaa deganaa Northern Ireland markii lagu soo daadgureeyay landlordska Scottishka iyo Englishka ah ee u badnaa aqoonta Protestantka? waxa la dejiyay siyaasad lagu yareynayo beerfalayaasha Irish Catholiga ah si ay iskaga tagaan beerfalashada. ugu dambeyntiina qayb ka mid ah Ireland waa Northern Ireland waxay aqlabiyadu u gacan gashay oo isku bedeshay Protestantkii laga soo waariday Englishka iyo Scottishka. haddaba markii uu yimid boqorkii la oran jiray James II ee Catholiga ahaa waxa uu ku kacay ama kor u kacay madaxtinimadii boqorada ama boqorka Catholiga kadib markii uu ninkaasi uu ka soo horjeestay dadkii la dejiyay dhulka waqooyiga Ireland. waxaana Protestantka la soo gudboonaaday boqor ku saabsan in dhulka laga qaado awooduna ay gacanta u gasho ama ay u wareegto Catholiga dhulka leh. waxaana adkaatay xaalka Protestantka soo degay Northern Ireland. King James II wuxuu isku dayay inuu ka adkaado si xooga Protestantka deegaankaasi degan ee waqooyiga Ireland, laakiin waa uu ku guul daraystay. taa beddelkeed waxa adkaaday boqor William kii Orange-ka la oran jiray. dagaalkii 1690kii ee la magacbaxay Boyle, Protestantku waxay hirgeliyeen sharciga ciqaabta ee loo yaqaano the Penal Laws. waa markii ay isku ballaariyeen Ireland. sharciga Penal Laws waxa uu noqday mid dawladdu ku dhaqanto kaas oo xuquuqda ka qaadaya dadka Irishka Catholiga ah ee Ireland degan. waxaanu u dhignaa sidan. sharcigaasi wuxuu qeexay dhulka ma iibin karaan mana iibsan karaan dadka Catholiga ah ee Irishka ahi. ciidamada ma geli karaan Catholiga Irishka ahi. waxbarashada ma geli karaan ama waxbarashada sare ma geli karaan Catholiga Irishka ahi. sanado badan ayay ka jirtay arrintan xuquuqda laga qaadayo ee loo yaqaanay sharciga ciqaabta ee loo bixiyay luqadda Ingiriisiga the Penal Laws. Irishka Catholigu waxa la gudboonaaday markii sharciga la soo saaray dagaal inay ku qaadaan Protestantka, laakiin guul badan kamay gaarin Irishka Catholigu dagaalka ay ku qaadeen Protestantka. waxaana lagu waayay nafo badan dagaaladaasi. 1800 dalweynaha Britain ayaa waxa uu qayb ka noqday dalweynihii boqortooyada Ingiriiska ee loo yaqaanay United Kingdom. laakiin dagaalka u dhaxeeya Catholiga iyo Protestantka ee ka socday Ireland xilliyada waa uu sii socday. xilligaas oo Britishkuna uu ku dhawaaqay midowga UK. waqtiyada Irishka Catholiga ahi waxa ay dalbanayeen in la siiyo isxukun hoosaad xadidan kaas oo loo yaqaanay Rome Rule. isxukun macnihii dabeeqadii 1800. inta badan dagaaladu waa ay dhinac socdeen markii uu dalabkaasi jiray wayna sii xoogaysaneysay xorriyad u dagaalanka Irishka Catholiga ahi. 1900 dawladda Britishku gacanteeda waxa ka baxay
maamulka qaybta koonfureed ee Ireland ee hadda imika aanu joogno ee la yidhaahdo Jamhuuriyadda Ireland South Ireland 1921kii qaybta waqooyi ee Ireland waxa ku badnaa Protestanka oo waxa baaqi uu ku sii ahaaday maamulka Britishka. Ireland waxa loo qaybiyay laba qaybood waa sida ay hadda tahay oo ku salaysan diin ama caqiido. Republic of Ireland oo ah dawlad Catholic ah iyo waqooyiga Ireland oo ah aqlabiyadu Protestanka boqortooyada UK xubinta ka ah. Labadaas ayaa loo kala jaray jasiiradda Ireland. sidaad ku aragtaan sawirka qaybta ee ay tahay Ireland. si haddaba 1922kii markii la soo saaray sharciga lagu kala jarayo ama lagu kala qaybinayo Ireland ee ka soo baxay baarlamaanka Ingiriiska waxa loo aqoonsaday qaybta koonfureed the Irish Free State oo loo yaqaano Irishka xorta ah halka imika la yiraahdo Republic of Ireland. qaybta kale ee waqooyiga Irelandna waa qaybta ay u badan yihiin Protestanku waxa ay loo aqoonsaday inay yihiin maamul hoosaad hoos yimaada boqortooyada Ingiriiska oo leh isxukun hoose. 1922kii sharciga lagu dhisay labada Ireland ee baarlamaanka Ingiriiska ka soo baxay ee labada qaybood loogu kala qaybiyay Ireland ee loo yaqaan Ireland Act waxa uu haddana dib u burburay 1949kii kadib markii baarlamaanka Irishku ee xagga koonfureed ay ansixiyeen inay ka baxeen boqortooyadii xubinnimadeedii oo ay noqdeen jamhuuriyad la yiraahdo Republic of Ireland. sidaa ayay jamhuuriyadda Ireland ku noqotay dal madax bannaan waqooyiguna uu baaqi ugu sii noqday aqlabiyadooda Protestanka ahi xubinnimada UK. waqooyiga Ireland rabshadihii ka bilaabmay 1969 ilaa iyo 1998 heshiiskii jimcihii wanaagsanaa waxa uu ka curtay mar kale waqooyiga Ireland dagaal sida ay xustay taariikhdu 1969 ilaa iyo 1998 xilliyada wixii u dhaxeeyay dagaal rabshado wata dagaalkaas oo ku salaysan caqiido kuwaas oo dhex mari jiray Catholiga iyo Protestanka. waxaana halkaasi Ireland ka soconayay waqooyiga Ireland dagaal muddadaasi dheer socday oo u dhaxeeyay labada qaybood ee Protestanka lagu beeray waqooyiga Ireland iyo dadka laga tirada badan yahay ee Catholiga ee Irishka ah. dagaalkaas wuxuu socday 40 sano muddo ku siman waxaana ku dhintay kumanaan kun oo qof ilaa hadda lama hayo tiro saxda ah dadka dagaalkaas waqooyiga Ireland ku dhintay laakiin dawladda Ingiriisku waxay ku sheegtay ilaa 4,000 ku dhawaad. laakiin Irishka Catholic waxay sheegeen in kumanaan kun oo qof uu dagaalkaasi uu ku dhinteen. cadaawadda ka jirta waqooyiga Ireland weli waa ay socotaa waxaana lagu eedeyn jiray ciidamada Ingiriiska inay la safan jireen Protestanka aqlabiyadda ku ah waqooyiga Ireland. sidoo la socono jasiiraddu waxay ka koobnayd 82 county ama gobol waxaana 6 ka mid ah countiyadeeda ay noqdeen oo ay yihiin waqooyiga Ireland oo hoos yimaada boqortooyada Ingiriiska. 6daasi county waa 4 county waxa leh kuwa aqlabiyadda leh ee Protestanka ah ayaa ku xoogan halka 2 gobol ay ku xoogan yihiin kuwa Catholiga Irishka ahi. haddaba Ireland oo taariikhdeedu aan